Assalaamu calaykum. Kuwani waa dhowr macluumaad oo aan soo arooriyey. Kim Beek waxa uu ahaa nin Maraykan ah oo dhintay 2009 isagoo 58 jir ah. Ninkan ayaa awoodihiisa maskaxdu ay wax u dhinaayeen, waxaana ku adkaa dhaqdhaqaaqa. Saas oo ay tahay waxa uu lahaa awood yaab badan oo ah inuu kutubta u akhrin karo si degdeg ah, isagoo bog walba hal il ku fiirinaya. Waxaa taas ka sii yaab badan in hal mar kitaabka uu akhriyey uu xifdinayo oo bilow ilaa dhammaadkiis ku soo celin karo. Intuu noolaa waxa uu xifdiyey kalandarrada isagoo marka qofku u sheego sanadka iyo bisha iyo taariikhda maalinta uu dhashay ugu jawaabayay maalin heblaayo ayaa dhalatay. Xasuustiisaas yaabka leh ayaa ninkan caan ka dhigtay, isagoo xataa laga sameeyey filin ka hadlaya sheekadiisa. Inta badan waxaa la maqlaa shanta dareen ee jirka oo ah urka, aragga, dhadhanka, taabashada iyo maqalka. Laakiin 5 dareen kaliya ma lihin ee dareenno fara badan ayuu jirkeenu leeyahay. Tusaale ahaan waxaa ka mid ah dareenka Ingiriiska lagu dhaho proprioception. Waxaanu qofku dareemi karaa in isaga oo indhaha isku haysta uu gacantiisa ku taaban karo sankiisa. Ama markaad socotid oo adoon lugahaada hoostooda aadan fiirin, uu jirkaagu mar walba ka warqabo meelaha lugahaagu marayaan. Dareenkaas ayaa waxa uu keenaa in qofku isagoo aan arkayn ka warqaba meelaha ay xubnaha jirkiisu joogaan. Dareenkan ayaa waxa uu u dhima amaba daciifiya alkoolada iyo khamrada. Wadamada aadka looga cabo maandooriyahaas ayaa booliisku waxa ay ku ogaadaan qofka cabsan inay dhahaan, waxaad gacantaada ku taabataa sankaaga. Markaas ayaa waxaa dhici karta inuu isha faris ka geliyo isagoo rabay inuu sankiisa taabto. Waxaa kaloo jira dareen Ingiriiska lagu dhaho sense of balance, dareenka isu dheelitirnaanta, oo keena qofku marka uu istaago uusan dhulka ku dhicin. Dareenkan ayaa xubinta mas'uulka ka ah ay ku taallaa dhegta gudaheeda. Waxaa jirta haweeney uu ku dhacay cudur keenay inuu dareenkani ka lumo, taasoo sababtay in marka ay istaagto ay liicliicdo oo aysan si fiican u istaagi weydo. Ninkan waa nin u dhashay Koonfurta Kuuriya, waxaana lagu xasuustaa in 1982 uu dilay 56 qof kadib markii ay murmeen gabadhii ay guriga isla deganaayeen, taasoo ka dhalatay markii ay dishay duqsi xabadkiisa saaran isagoo hurdadiina ka kicisay. Subaxdii ayuu shaqadiisa aaday isagoo ahaa booliis, laakiin markii uu shaqada ka soo rawaxay isagoo weli ka caraysan hurdadii laga kacsay, ayaa waxa uu bilaabay inuu dadkii uu la kulmo uu laayo, isagoo maalintaasi dilay 56 qof, dhaawacayna 35 kale. Markaa kadibna isagu isdilay. Qofku markuu qufaco ama hindhiso lama arko hawada uu afkiisa ka soo daayo masaafada ay gaartay, laakiin waxaa jirta tekniik wax lagu sawiro oo la dhaho Schleeren, oo aad arki kartid hawada khaasatan hadday tahay hawo ka kulul jawiga ku xeeran amaba ka qabow. Tekniigan ayaa waxaad arkaysaa hawada kulul ee ku xeeran shamaca. Waxaad kaloo arkaysaa hawada kulul ee ka soo baxaysa shaaxa, iyo weliba in marka uu qofku qufaco ama hindhiso ay ka soo baxdo hawo aad u fara badan oo gaarta masaafo dhan 2 mitir. Waa waxa keena ama fudaydiya in dadku ay kala qaadaan hargabka. Intaas noogu joogto macluumaadkii aan maanta soo arooriyey. Intii aan mar dambe kulmi doono, nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullah.